halkan waxaan ku tusaaleynayaa Gantt qaabka loo sameeyo adoo Excel isticmaalayo. Waxaan tusaale u soo qaadanayaa hay'ad ama shirkad markaas shaqaaleyn sameynayso oo shaqaaleyntii waxyaabaha tilaabooyinka ay qaadi lahayd halka ku qortay. Tusaale ahaan staff needs assessment la sameeyay in loo baahan yahay qofka shaqaalaha marka hore muddada uu qaadanayo waqtiga bilaabanaysa discussion iyo meetingyada ay bilaabanayaan waqtiga dhamaanayaan iyo inta ay qaadanayaan 4 maalmood dhammaan waa tilaabooyinka ay rabaan inay qaadaan laga bilaabo maalintii loo baahday qofka shaqaalaha ahaa iyo maalinta overka loo diray oo halkan u dambeys. Xagana waxa way marka dee activity kasta tilaabo kasta meeshana maalinta ay taariikhda ay bilaabanayso iyo taariikhda ay dhamaanayso kadibna taariikhdan muddada u dhaxaysa halkan lagu shubay oo waxa weeyaan task duration. kadibna halkan progress ahaan task duration kan progress ahaan inta ilaa had la dhameystiray waad aragtaa labadaas saddexda oo horeeyay 100% waa dhameystiray kuwa kale 70% waa dhameystiray kan 80% intana progress kan oo maalin ahaan days oo kale taa ya ayadana la rabaa in lagu shubo. waxaad sameynaysaa un equal leedahay waxaad ku dhufanaysaa days kii loogu talagalay duration activity kasta inuu qaato loogu talagalay waxaad ku dhufanaysaa percentage ilaa hadda la gaaray ama la achieve gareeyo oo muxuu ahaa lagu guuleystay. okay aan leeyahay kadibna waxaan leeyahay waa soo jiidaya dhamaantood. taa sidaas ay u buuxsamaysaa marka. haddana waxaan gelinayaa Gantt chartkii aan halkan hadda samayntiisa ka bilaabayaa. waxaan leeyahay marka hore waxaan highlight gareysanayaa start date ko sida aan u highlight gareysanayaa dhamaantood. kadib waxaan tagayaa insert markaan tago waxaan imaanayaa graphs halkan charts ka imaanayaa halkaas aan qodayaa waxaan qaadanayaa more column charts kadib waxaan qaadanayaa bar kadibna waxaan qaadanayaa stack bar markaasaan okay leeyahay. okay markaan iska soo jiidanayaa halkan iska kaasanayaa xogaa marka kala yar bixinaa si hadhow ay si fiican igu muuqato halkaas saas leeyahay. okay sidaas ay u ekaanaysaa marka koowaad marka waxa weyn aad graafkii oo stack bar-kaada inaad soo geliso marka koowaad. marka xigto waa inaad ku soo dartaa task duration chartkii oo sida waxaan leeyahay right click kadib waxaan qaadanayaa select data kadib kana ii soo baxaya waxaan leeyahay marka add waxaan ku darayaa marka series name ku wuxuu ii noqonayaa task duration kana halaas yar meesha ku sii qoro waa iska tirayaa laakiin waxaan qaadanayaa duration ku actual ka halka qaadanaya. okay aan leeyahay graafkii sidan uu ekaanayaa chartkaaga sidan uu ekaanayaa laakiin intaanan ka bixin waxaan sameynayaa halkan aan edit dhahay waxaan rabaa taskan shaqooyinkan halkan graafkeena inta 1 2 3 oo waxa ku qoran tira caadi ku qoran y axis kana rabaa inaan soo geliyo taskaygan inaan halkan ka soo taxaan rabaa. marka halkan aan imaanaya dhinaca horizontalka edit aan dhahayaa edit markaan dhaho airbox kana ii soo baxaya inta man highlight gareena iyagu man highlight gareena alaha aan doonayna meesha ii soo galaan. okay aan leeyahay kadib waxaan dhahayaa okay waka hadda ii soo galeen halkaas ii soo galeen. kadib waxaan sameynayaa qaybahan qaybta buluuga ah yaan qali kamid sida uu ugu dhufanayaa kadib waxaan dhahayaa right click kadib waxaan dhahayaa format data series aan leeyahay. box kana ii soo baxayo intaan tagayaa markaan inta tago waxaan leeyahay no field markaan dhaho haddana waxaan dhahayaa no border. intaa kadib dhinacan halkan aan ku soo darsanay tasks dhinacan aan uga soo darsanay graafka ama chartka waxaad arkaysaa in aynan u qornayn nidaamkii halkaas ay u qornaayeen oo macnaha orderkooda inuu qaldan yahay inay rogan yihiin aad moodaa way rogan yihiin oo halkaas fiiriseen over oo ugu dambeysay ka bilaabanaya tii u sarreysay staff needs hoos jirta. dhinacan haddaad fiiriso scale-ka oo dateska maalmaha inoo haya asagana xagga hoos u jira waxaan dhanaan rabnaa inay kor maraan. waxaan sameynayaa marka kanaanu imaanayaa qaybtan oo taska ay ugu qoran yihiin right click aan leeyahay waxaan sameynayaa format access aan leeyahay. format access markaan dhaho halkan aan imaanaya waxaa ku qoran categories and reverse order taasaan tuujinayaa hal mar way isbedelayaan qaabkan ay noqonayaan active. taariikhdii waxay ii martay dhinaca sare tanna way is hagaajiso sidii nidaamka halkan ay u qorneed ay u qormatay dee baaski halkan iigu soo haray oo durationka kaliya ii soo haray maadaama tii kale aan ka saaray
ayaguna qaabkaasay iskugu hagaageen. inta kadib waxaa sameynayaa egg space ya elkan ku jira fiiri meel faaruq ah iyo baaskan kuwaan aan doonahay inay baas inoo noqdaan oo waxyaabihii muxuu ahaa gaanjaadka inoo cabiraya inoo noqdaan qaybteedan bidix abadaalano ewerka fiiri dhinacana sidoo kale waxyaabahaas rabna meeshana ka saarno qaabkan uga saarayna marka waxaa waaye datekan waxaan leenahay dateska start dateka iyo end dateka midee ugu horreysa midee ugu dambeysa tanaa ugu horreysa maahano taasa waxaan leeyahay right click waxaan leeyahay format cells waxaan eegayaa halkana waxaan leeyahay general kadibna waxaa ii soo baxaysa halkan inay tahay 450820 ay soo baxayso qoraalkaasaan okay isaga dhahayaa right click aan dhawa iska qaadanayaa meel halkan oo kale iska dhiganayaa besta halka isaga leeyahay ayadana dhib ma lahan barteedaan u daynayaa oo sideedina ahaataan u daynayaa kadib waxaan u imaanayaa meesha u dambeyso start iyo end-kana waa kana sidoo kale sameynaa right click aan leeyahay waxaan leeyahay format waxaan leeyahay general waa kana date-ka kan uu ii noqonayaa 45 kaas ayaan isagana qaadanaa copy aan leeyahay waxaan geysanaa halkaa anigu copy aan dhahayaa laakiin haddaad adiguna niyada isaga heeni kartaa marka sidoo kale iyadana barteedii aan ku celinayaa formatkeedii aan ku celinayaa halkaas u daynayaa kuwan marka waxaa waaye qaabkan u isticmaalayno qaybta soo socota la soco inta kadib marka waxaa sameynayaa date-ka sida ugu dhufanaya scale-kaas oo taariikhda inoo haya sida ugu dhufanaya marka sida ugu dhufto waxaad arkaysaa dhinaca midigta waxa iga muuqanaya eeg halkan waxaa ku qoran minimum intana waxaa ku qoran maximum annaga minimum keena kan weeyaan maximum keena kan waay hadba kan yar minimum noqona kan sare oo badan oo noqonaya maximum marka qoraalka ka minimumka ayaan kan ku bedelayaa marka kubiyaas ka dhahaan qaadani koobisanaya kadib halkan aan imaanayaa halahaas oo pointiga inta kasoo jira iska tira intaan ku bedelayaa sidoo kale hadana kan aan imaanayaa waan koobinayaa waxaan leeyahay mar kale halkii angle-ka tuuban tuujinayaa hibicadaas waxaa halkan ka jira iska tirayaa kadib besta ku leeyahay okay aan leeyahay marka wis aruurisay graafka wis aruuriyey space-ka inta wuu ka baxay kan intan wuu ka baxay date-ka xataa way kala sikadeen nidaamkaasi u soo baxay kadib waxaan fiirinayaa space-yada u dhaxeeyo qaybahan hadda inoo soo baxay orange kan baagan space-yada u dhaxeeyo meelaha faariq oo u dhaxaysa rabaa inaan ka saaro marka waxaan sameynaa ayaga sida qalin tuujinayaa kadib haddaan right click dhaho waxaan qaadanayaa format data series dan intaad imaanaysaa series overlap-ka sidooda daynid 100% laakiin gap width-kana waxoogaa eberka dhigayna waa cunay halkana keena oo isku sikanayaan kadib anoo halkaa joogaan haddana inta imaanayaa cid markaan imaado waxaan sameynaa xoogaa waxaan gelinayaa gradient film aan gelinaa sidaas u gelinayaa koos waxaa rabaa inay xoogaa wax maara qalin ay igu ekaato intaa kadib waxaa rabnaa percentage-kan ah progress-ka wixii horumaroo la sameeyey ilaa hadda activity-yadan taaskan halkan ku qoran wixii horumaroo laga sameeyey oo percentage ahaanka u qoran yaan waxaa rabnaa inaan oon habbaa oo kaleeta aan ka dhigno oon halkan ku muujino garaaf ahaan aan ku muujino marka waxaan sameynaynaa si aan arrintaas u sameyno qeybaha intiga oon hadee qalinka kaxa aan ka tirnay qadka aan ka tirnaa kuwana yaa waxaan gelinaynaa waxa la dhaho erabas marka sidaasaan waxaan ilaad gareynayaa markaa sidaa ugu dhufto meelaha intiga waa faaruba sidaa ugu dhufanaya marka sidaa ugu dhufto waxaan imaanayaa balaastan aan imaanayaa waxaan leeyahay erabas markaan ku dhufto sidaa ugu dhufto waxaan sii tagayaa more options markaas sii tago dhinacan direction waxaan ka qaadanayaa plus dhinaca end style-kana waxaan ka qaadanayaa no cap aan ka qaadanayaa haddii aan rabo marka progress-ka inaan mataqaanaa aan ku muujiyo balaariyo custom-kan aan kusii dhufanayaa kadib custom markaan kusii dhufto waxaan specify gareynayaa garaafka waxa gelaya oo content-ka gelayso oo hii ogaanaysa halkan aan ku dhufanayaa kadib marka halkaasaan iska tirayaa taas waxaan gelinayaa kuwan oo days completed kan gelinayaa waxaan leeyahay okay marka kadib waxaan sameynaa halkan aan ku laabanayaa si aan u weyneeyo oon u tusiyo calaashaan boqolkiiba meeqa coverage oo kaleeto oo diagram ahaan muuqaal ahaan aan ugu tusiyo waxaan weyneynayaa leemankan hadda meesha soo galay ka weyneynayaa halkan marka halkan aan wadayaa inta ay ka kafa gareynayaan si qumaatay oo wada gaarayaan qaybta kaleete
gradient film kale marka waxaan leeyahay intaasaan ku joojinayaa colorkana waxaan ka rabay inuu ii ahaado green hadda ii yahay hadda waxaa si qumaadkii noogu muuqda percentage completionka aan sameynay macnaha inta progress aan sameynay ilaa hadda activity kasta waa halkan ku qoran yaa caadi noogu muuqda labada hore oo kale fiiri saddexda ugu horeysa oo kale waa complete 100% waa ilaa halkan 100% ay ka yihiin kuwa kalena waa inoo muuqdaa waxa inoo dhiman iyo waxa aan hadda ilaa hadda aan qabanay aan accomplish karaynay marka ha yeeshee laakiin waxaan rabnaa inaan percentage completionka aan ku darno iyagoo sidan halka anagoo joogna yaa waxaan leeyahay marka haddana data labels aan ku darayaa laakiin halka markaan tuujiyo waxaan sii qaadanaa options markaan sii qaato halkan imaanaya waa ka saarayaa meeshaas kuwaasaan ka saarayaa marka kadib haddana waxaan imaanayaa halkan iyagii aan u imaanaya data labels aan ku daray naftirkooda aan u imaanayaa waxaan dhahayaa haddana waa ka qaadaya value ka qaadaya bedelkeeda value waxaan aadayaa value from cells halkaasaan tuujinayaa boxka yar waxaa soo gashanaa marka percentage-ka aniga markaa aan rabaya soo gashanayaa okay aan leeyahay marka percentage markuu sidaa iigu soo galo yaa waxaa sameynaya percentage iska format gareysanayaa percentage-keyga iska format gareysto waxaan tegayaa intaan imaanaya waxaan leeyahay base-ka qaadan aftana base-ka ii galaan rabaa oo qaybta muxuu ahaa tusinaysa progress ee cagaaran inay ii gashaan rabaa marka base-kan saaraya qalinka halka saaraya halkaas inay ii gashaan rabaa kadib halkan aan imaanaya qalinka si loo ay u muuqato waxaan saaraya impact font la dhahayaan qaadanayaa impactgaas markaan qaato maybe kalarkana waydaas ka qaadanayaa kadib ganjadkeyga waa diyaar haddii anigu inaan naashnaashto aan rabo xaggaan aadi karaa formatka kadibna waxaa soo qaadan karaa kalaradan mid ka mida oo kalan iska soo qaadanaya waka timekina halkaas u marayaa bagskana waxay tusinayaan progresska ilaa hadda la gaaray waxaa ii muuqata 1 2 3 inay si toos u dhammaadeen howshan ay dhammaatay howshan 70% inay marayso howshan 80% howshan 70% howshan 50% howsha ugu hooseysa waxay maraysaa 20% ayaa la dhammaystiray marka ganjadka qaabkaas ayaa loo samaystaa